بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. walaalyaal maanta waxaan inii duubayaa dariiq meel la yiraahdo khamiis albaxar. khamiis albaxar waxay u dhaxaysaa magaalada la yiraahdo shageeg iyo macayl bay u dhaxaysaa. marka waxaan inii duubayaa khamiis albaxar waa dariiqa wadada buuraha dhexdooda marta oo aad ciriiriga u ah. baabuurta waaweyn baa marta badanaaba kuwa yaryarna waan maran laakiin caqaba shacaar baabuurta ka baxaysa ayaa marta. marka waxaan rabaa inaan inila wadaago maqtaaca yarka insha allahu tacaala. waa silsiladii cabdiraxmaan. allah subxaanahu wa tacaala ayaa noo yasiray dhulkan inaynu marno oo ku manaafacaadno. ilaah baa inoo yasiray subxaanahu wa tacaala. maahan awoodaynu inagu leenahay, waa awood rabbaaniya weeye. marka halkan maxatayar baa ku taalla, ma garateen, iyo masjidkeedii. soo dhowaada marka bal fikirkiina ka dhiibta turuqan. aadanaha ilaahay baa ku firdhiyey dhulkan. allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ku firdhiyey dhulkan oo yidhi fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaahi wadkuru llaha ina allaha gafuurun raxiim. aayaddu inay sidaas ahayd baan u malaynaya, anigu sheekh maahiye. marka walaalayaal ku soo dhowaada dariiqan khamiis albaxar ayaa la yidhaahdaa dariiqeeda. waxaa shageeg baad ku socotaa, waa 100 kilomitir oo 60 ka midihi ay sidaa yihiin. 60 kilomitir oo 100kaa ka mida waa malafaadka bayna aljabalayn. هذا هو بين الجبلين والملفات. الله يعيننا. إلهي أنك ينتي مسلمين ما كنا بدليو وادر كيسان. ما كاسادو كان الحمد لله. إلهي نوية سريبا سبحانه وتعالى ما هذه السبناتي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. marka walaalayaal mandarkaas cajiibka ah weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa qaarba meel ayuu wuxuu ka yeelay guryahoodii. marka innaga haddii ilaahay dhul siman ina siiyey oo beeraleeya, yaa ilaahay dadkan wuxuu siiyey meeshaas buuraleyda ah, jabalaynkaas bayna aljabalayn. marka walaalayaal waxaan u duubaa inta badan dhulkan waxaan u duubaa dhulka wanaagsan oo uu ilaahay uu ina siiyey. dhulka wanaagsan oo uu alle ina siiyey subxaanahu wa tacaala, haddana aynaan ku manaafacaadin oo aynaan doonaynin in aynu ka faa'iidaysanno nicmooyinka ilaahay uu ku manaystay. hadday biyo tahay iyo hadday carrasan tahay, dhul beeraleeya hadday tahay. meeshaan waa meel buura, waa dhulku qaar waa jibaal weeye. jibaal aan horay inii ku soo duubay oo la yidhaahdo jibaal tahaama weeye. soo ma idinaan garan. marka walaalayaal ilaahay wuxuu ina siiyey dhul aad u wanaagsan, dhul beeraleeya, biyuhu iska qulqulayaan. waadi baan dhinacayga mara ama tog sidaad hadba u taqaanaan. innaga kuwa sidaa la mida oo sidaa buuraha u dhex mara ama meelaha laagaha uga degaa biyay leeyihiin inta badan, laakiin kuwaani biyo ma lahan. meeshan aan marayo waqtigan kulaylaha waa waqtigii kulaylaha. meel ka kulayl badani ma jirto. mandaqadan aan joogo sacuudi carabiya waa mandaqada ugu kulul. maxaayil baa ugu kulul waqtiga kulaylaha ah, iyo madiina ereyadeedaas ilaa maka
يعني هل كان ميل عن أوديو أنا معنا عرق ميل كريل كاس وكلا ميل اللي يرادو حايل وحدود الشمالية أيانا ميل كريل كاس له حايل نوالمد كريل كا مكيف كسر أو كوشيدن air condition كسر كوشيدن ما لقى يابو إن عاد إنه كقبوجية لقى ما يابو وقت كريله وقت قبوبه أنا ماشي حايل أنا اللي يدي ثلج بابا كسودك ثلج بيبيلا توا وحي حكتا منطقة تابوك حدود الشمالية باللي هذا وطرق أردن باللومرة أما جوردن هذا سيدا ذكر نيسان لكن تنوى حدود الجنوبية باللو هذا جيسان بانو صعدا هذا طريقة نوحو يجينيا خدكي دولي قاها international road oo Xijaas iyo Yemen u dhaxeeya ayuu geynaya haduu alla idmo waxay ii jirtaa hadda xuduud adiga 60 kilomitir 55 kilomitir marka mantaqadan waa mantaqad aad u kulul waxaan rabaa inaad dhulka kala ogaataan yawm min al-ayam waa laga yaabaa inaad ama sheeko ku maqashaan ama aad shaahid ku maqashaan منطقتنا وحل هذا طريقة وحل مرة خميس البحر الشقيق بانو سعودين على بحر كبحر الأحمر بلد كيجي أنا شيء هذا بدأ كلية إيجا حكتة بدأ هدان تلابو وحان شوقا صوماليا مركا وميل أين حدود لنا هاي هيك بابور تطي بيتباكو صور نافية خد كيبو كاحرية ودن كان ترولين تو نوعاس عربت وحي ترى هذا السواقة دليل على أخلاقك كبير هذا يعني ترول نمدو وحي دليل أتهاي أخلاق هذا حتى هذا هاي نين أخلاق له وتدك حق دور ميس وتد وحي لا هاي حدود بي لا هاي لما روح قفل بحد بوليه marka meeshan baabuurta yararka ah ma lahan xaq dhowrna ma lahan xushmadna ma lahan khadkii baa laga xiraya khadkii baa lagu soo galaya meel la isugu soo galama meeshan waa meel halisa marka ilaahay hayna ku nabad geliyo annaga iyo intii ilaahay uu risiqooda geliyay baabuurtaba oo birtaas uu ilaahay risiq u geliyay oo Soomaaliya walaalahayga Soomaalida ah ama muslimiinta إلهي هكون نبتقلي ولا علي البانين الله هاي طريقة وخميس البحر وطريقة أسوي بابور دواوي باقول غليسة نحلي كان وبفادي بهذا وحلي سكفر قضاها مركا ولا علي وبين الجبلين بين الجبلين كاسانيني بانيني دوبي دونا إن شاء الله جيسان بان هدو إلهي إذن كيسا هاتين نقطو إلهي إذن كيسا إيضانا آنيني دوبي دونا منطقة جيسان وانو سعودو هدو إلهي واكورو أبو عريش هدو قالكو إلهي باكوسا موقل ما يشا اللي يراهدو صبية انت آن أسعودو سفر كان هدو إلهي دمو واكاسا شقيق 60 بيجرتا الدرب واتاسا درب بان مريا منطقة والبوانيني دوبا يا إلهي إذن كيسا انتي مقطع أي نقطبة وإنيسو دجينا يا إلهي إذن كيسا مركا كسور دو هذا سلسلة عبد الرحمن للسفريات وعاني قاعد سنة يا بالفكر كينا كديب طرقان يدول كان سحرها أما الصحراء أما الجبال بالفكر كينا يدوكونا كديبتا ماشان حقيقة مركان إني شاكنا ظروف تانقو هايسا ودن كيجي هدي إلهي إدمو دولة يدي ودولة هذا تنايسا تاوابا مد إلهي ونقو قرقاري عندي أمدي صومالية دو افتيميسي عمل بانو ليالناي مركا ولا ليال marka haduu ilaahay idamkiisa ay noqoto wadankan duruufun baa nagu haysta kuma aanan noolaaneen habeenna ma joogin ilaahna waa igu ogyahay laakiin min saaxib alciyaala
oo aan geelna u xeroon arina u xeroonin adduunyana lahayn meeshii uu bariiskiisa ka helayo waa uu ku khasban yahay inuu ciyaalkaa yararkaa ku koriyo marka walaalayaal fikirkiina ka dhiibta aad iyo aad baan u jecelahay ummadda Soomaaliyeed dadkayga Soomaaliya aad baan u jecelahay dalkayga aad baan u jecelahay waqtiyada qaarkood waxa dhacda inay carabtu igu yiraahdaan yaa zool yiraahdaan ilaah baa igu waa ka dagaalama qofka dadka waxaan ugu jecelahay yaa Soomaali yiraahda walowba magacayga bayuu sheegin oo sanay aqoon yaa Soomaali hadduu igu yeero aad baan u farxaa marka waxa la rabaa walaalayaal dadnimada iniyo la isma dhibaadiyo waa inaad dalkiina iyo dadkiinaba aad ku adkaataan waa in aad jeclaataan dalkiina iyo dadkiina dhalinyarada waxaan leeyahay qurbe ma faa'iido ma lahan baan ku iri cimri degdeg iyo calool xumo baad ka qaadaysaa marka walaalayaal dhalinyarada waxaan leeyahay waxaad tihiin madaxdii dalkaad tihiin wax barta oo dalkiina wax ku barta duruuf kasta hayni soo marto dalkeenna madaxdiisii baa tihiin jiilasha soo socda madaxdoodii baa tihiin marka walaalayaal waxaan idin leeyahay wax barta dalkiina ha ka tegina dalkiina ha ka tahriibina walaalayaal barbalday midkaan ilaahay ciribtiisa ha gooye xasbiya allah wa ni'mal wakiil marka walaalayaal aad baan idin salaamaya waan idin jeclahay ilaahay idamkiisa ilaahay waxaynu ka barinay kuwa jannada isku arka inuu ilaahay ina ka yeelo jannada ku kulma oo dhulkoodiyo nabada arka aad baan idin salaamaya walaalayaal miqtaacaan ilaahay idamkiisa intaas ayaan rabaa inaan ku soo koobo wixii ka dambeeyana insha Allah shageeg baan idin duubi doonaa waxaan idin duubayaa hadduu alla idmo darab intii aan ka gaaro fursad u helo hadduu alla idmo waan idin la wadaagayaa bal idinku marka bal fikirkiina ka dhiibta dhulkaan iyo dhulka alla ina siiyey intaad isbarbar dhigtaan waa kaasa geed akhdar ah ama doog ah kuma arkaysid meel ishaada u roon ma arkaysid waad aragtaan ilaahay dhul buu ina siiyey walaalayaal dhul wanaagsan ayaa alla ina siiyey laakiin inagu ma ogin nimaan dhul marini dhaaya ma leh baa layidhi dadka qurbaha aaday dhulkooda waa jecel yihiin qurbahana waxaana keenay waddankayagii dawladdii baa burburtay mustaqbalkayagii baa dayacmay waxbarashadii aanu wax baran lahayn hadduu ilaahay waa kuur aqoontii aanu yeelan lahayn dhulkayagii aanu madax ka noqon lahayn oo ka shaqaysan lahayn ayaa burbur iyo dagaal ka dhacay marka waa dadkaas aanu la midnahay Soomaaliyeed oo aan taharubladu ku dhacday aad baan idin salaamayaa walaalle mar labaad iyo mar saddexaadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof waliba bal ra'yigiisa ha ka dhiibto dhulkaas walaalayaal waana mahadsantihiin walaalayaal